هيبة شرفتين وممكن هاي سنون إنان هاي لنون حريرها قاويناه وإنه نسقان هيبة شرفتين وممكن هاي سنون إنان هاي لنون حريرها قاويناه وإنه نسقان barnaamijka daaris waxa uu soo gaadhsiiyey tartan u dhaxeeya 20 dugsi sare oo ku yaala magaalada Hargeysa dugsiga Nuuraddiin tartankan 20ka dugsi ka dhaxeeya waxa lagu tartami doonaa heerka fahanka iyo xawaaraha akhriska ee af Soomaaliga ujeedada koobaad ee tartanka uu barnaamijka daaris ka leeyahay waxa weeyaan sidii loo dhiirigelin lahaa akhriska marka koobaad tartankan wuxuu ka koobnaan doonaa 3 wareeg wareegga koobaad wuxuu ka dhici doonaa 20ka dugsi kastaba dhexdiisa waxaana ku tartami doona 16 arday dugsi walba wareegga labaad dugsi kasta waxa u gudbi doona 3 arday oo qaadi doona magaca dugsiga 16 arday ay ku tartameen wareegga koobaad wareegga labaad waxa uu soo bixi doona 60 arday oo ka kooban 20ka dugsi kuwaasoo wareegga labaad ku tartami doona dhexdooda kaalinta koobaad abaalmarinteedu waxa weeyaan $500 kaalinta labaad abaalmarinteedu waa $300 kaalinta saddexaad abaalmarinteedu waa $200 waxaan u rajaynayaa markaa dugsiga Nuuraddiin Girls in uu ka mid noqdo ardayda xaqal ciidka wanaagsan heli doona laba wareeg kadib waxa soo baxay natiijada saddexdii arday kaalinta koobaad Hibaaq Cabdifataax Cali way kaalinta labaad waxa ku soo baxday Mushtaaq Mubaarak Aar kaalinta saddexaad waa Hibo Cabdiraxmaan Xuseen si kaste oo aanu tartanka geynaynay waxa isaguna barbar socday arday mawhibo ama hibo ama talent leh kuwaasoo soo bandhigayay hibada Ilaahay gaarka u siiyay runtii waxaad sawirtay sawir qurux badan shimbirtan magaceed Soomaali kuma aqaan laakiin English ku aqaan waa maxay English maxay ku noqonaysaa waa ostrich waa goroyo markaa oo si wanaagsan sacabka loo tumo cabeer thank you ilaahay ba mahad leh mahadnaq ilaahay kadib waxaynu mahadnaqaynaa dhalinyarta qiimaha badan ee barnaamijka daaris daadihinaysa waxaynu ugu mahadnaqaynaa inayna soo doorteen oo iskuulo fara badan oo magaalada Hargeysa ku yaal naga soo doorteen waxa kale oo mahad celinayaa ardayda run ahaantii tartanka ka qayb gashay waxa kale oo si gaar ah ugu sii mahad celinayaa saddexdan arday kaalinta koowaad iyo labaad saddexaad ku guuleystay insha Allah waxaynu rajaynaynaa ardayda inay noqdaan ay ka soo dhex baxaan iskuulada kale oo insha Allah taala iskuulkana magac wanaagsan u soo hooyaan maamulka iyo macallimiintana ka farxiyaan aynu insha Allah rajaynaynaa